waa garoonka diyaaradaha ee magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ee MSP oo si diiran loogu soo dhaweeyay Fatxiya Aadan Cumar waa afhayeenka baarlamaanka magaalada Diridhabe ee ismaamulka Itoobiya. Afhayeenka oo booqasho shaqo ah ku timid dalkan Mareykanka ayaa soo gaartay Minnesota, waxaana garoonka si diiran uga hortagay jaaliyadda Diridhabe ee degan gobolkan Minnesota. ومني مقالة منسوتا جرتو بلدي تاني قالي فتحية Speaker of the House or of Gubaya كنا بنجران تبي خطي Welcome to Minnesota بقرب بنجان jaaliyadda ayaa xildhibaanada xirmooyin ubax leh qoorta u wada suray iyadoo si kal iyo laab ana ay ugu riyaaqday soo dhaweynta lagu maamusay xildhibaanad Fatxiya Aadan Cumar. Hadaladii soo dhaweynta ayaa ku bilowday sida tan: haddaanu nahay jaaliyadda reer Diridhaba oo waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa Fatxiya Sheekh Aadan Cumar Siyaarag ayaanu halkan ku soo dhaweynaynaa oo ah afhayeenka House Speaker-ka. Marka waxaan leenahay ku soo dhawow waddankaagii dadkaagii oo ku heelan dee wax kaloo nidhaaba garan maaye aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa inantayada madaxdayada sharafta leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan joognaa airportka Twin City Minnesota. maanta waa maalin weyn, waxaan soo dhaweynteeda u nimid maanta community-ga Soomaalida ee Itoobiya reer Diridhabe qaas ahaan. community-gaas waxaan maanta halkaas isku nimid Fatxiya Aadan Cumar Siyaarag. Fatxiya oo ah Speaker of the House at Diridhabe. eedda waxaan ku leenahay soo dhawow Minnesota, dadkaabadiyaa u timid gurigaadii labaad. haddaan annagu dadka waa ku fiicannaa soo dhaweeya dadka haddaan reer Minnesota nahay. marka aad iyo aad aan kuu soo dhaweynaynaa eeddo. welcome eeddo. ومني مقالة منسوتا جرتو بلدي تاني قالي فتحية Speaker of the House or of Gubaya كنا بنجران تبي خطي Welcome to Minnesota بقرب بنجان سفيدة وبليان خبرة family تبرة إن شاء الله. قرارنا جاي تكتي أباقياتنا. Obolaytenya Fatxiya the Speaker of the House diadu magaalada Minnesota ti baganagaan dhufte obolayankiya hundunu wariba katanati arkabtunundunu galatoma. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan xaqan ku soo dhaweynaynaa afhayeenka baarlamaanka ismaamulka Diridhaba Fatxiya Aadan Cumar. waxaan leenahay walaasheen soo dhawow dadkii maartay soo dhaweynta ka soo qayb qalayna idinkuna waxaan leenahay waad mahadsantihiin dhammaantiinba. adiguna waxaan ku leenahay Welcome to America. maanta waxa weeye maalin aad iyo aad igu qiimo badan oo u qaaliya igu tahay sababtoo ah waxa ii imaatay walaashay oo iga yar oo ka soo tagay iyadoo sabiya oo middle school ku jirta. maanta farxad weyn ba ii tahay. mar walba waxaan jeclaan jiray inaan noqdo oo soo arko. maanta haday hoygayga igu timi waxaan leeyahay walaashayda iga yar soo dhawow walaalo baxaan hoygaagii iyo dalkaagii ku soo dhawow ehelkaagii iyo family-gaagiina ku soo dhawow. waxaad timiday dalkaagii labaad. waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay guusha aad gaadhay adigoo ah inan yar anoo ka soo tagay maantana aad ii timiday adoo madax sare ah Speaker of the House magaalada Diridhaba. በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ደስ ብሎናል። የምንወዳት እህታችን የተከበረች ክቡር የድሬዳዋ ሕዝብ ምክር ቤት አባል አፈ ጉባኤ ያው እንግዲህ ጠዋት እሷን ልንቀበላት ነው እዚህ የተገናኘነው። እንኳን ወደ ሁለተኛዋ ድሬዳዋ ትንሿ በሰላም መጣሽ እንላለን። ወደ ለሚወድሽ ማህበረሰብሽ እንኳን አላህ በሰላም አገናኘሽ። በጣም እንወድሻለን፣ በጣም እናከብርሻለን። welcome እንልሻለን። waxaa soo dhaweynaa walaasheen Fatxiya Aadan Cumar Siyaarag ku soo dhawow. waxa way gudoomiyaha golaha baarlamaanka amaba afhayeenka golaha baarlamaanka Diridhaba ee Itoobiya Fatxiya Aadan Cumar. gacmo fara ku soo dhawow walaasheen. farxad weyn bay noo tahay maanta inaan halkan walaasheen ku soo dhaweyno. waxa kale oo u mahad celinaya dhammaan walaalaha Mareykanka jooga dhammaantood inta halkan ku sugan rag iyo inamaba leh aad iyo aad baad mahadsantiin iyo bahda saxaafadda iyagana waan u mahad celinayaa.
dhallinyarta waayeelka hablaha hooyooyinka dhammaan martishafta kale ee walaalaha nagala soo qayb galay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya waa mahadsantiin baan leeyahay walaasheenna waxaan leeyahay gacmo ku soo dhawow tolka ku soo dhawow jaaliyadda Itoobiya ku soo dhawow walaalaha Soomaaliyeed Itoobiyaanka dhammaantoodba waxaan leeyahay waxa gacan furan baan kugu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baa u mahadsantiin maanta waxaan isugu imaanay soo dhaweynta farxiyo aadan siyaarag walaashan waxaan leenahay soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow communitygaaga iyo ku soo dhawow dadkaagii sida quruxda badan u soo dhaweynay maanta walaasheena Fatxiya waxaad leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin adeed tahay hooyooyin adeed tahay dhalinyaro iyo adeed tahay caruurta yar yar iyo madaxda kulli waxaad leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhaweyseen walaasheena Fatxiya waxaan leenahay walaal ku soo dhawow dalka dalkaagii meel laga jecel yahay ka timid meel laga jecel yahay timid waxba ka cabsanin oo ku joogna ku leenahay ugu dambeyntii Fatxiya Aadan afhayeenka baarlamaanka Diridhabe ayaa iyaduna la hadashay Somali TV kana mahad celisay soo dhaweynta Minnesota ay kala kulantay iyada iyo wafdigii la socday dhammaan bulshada Minnesota joogta waxaan ku uri maanta aad qaabkaadii soo dhameyseen waliba gaar ahaan familigeyga iyo dhammaan dadka Diridhabe u dhashay dadka deegaanka Soomaalida u dhashay dadka Itoobiya u dhashay ana magacayga iyo magaca ismaamulka Diridhabe iyo magacii baarlamaanka ismaamulka Diridhabe waxaan leeyahay waad mahadsantiin jazaakumullahu khayral jazaa waxaan ii soo dhaweyseen wallahi soo dhaweyn aad u ballaaran soo dhaweyntaas oo iloobi doonin waligay waxaanan imaaday dalkaygii labaad waxaanan u imaaday dadkaygii marti kuma yihi alxamdulillaah dadka xagan wada joogo dhan waa familigaygii waa walaalahay waa ilmaadareyaashay waa ilmaabtayaashay waa dalkii aan ka soo jeeday Itoobiya ka soo jeeda marka waxaan leeyahay waad mahadsantiin insha Allahna waan wada joognaa waan is arki doonaa insha Allah shirarkan yeelan doonaa insha Allah waan ka wada hadli doonaa kadalahaan iyo ka ismaamul ahaanba aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay jazaakumullahu khayral jazaa ilaahay jazaagiina waxaan ku dhaha kafaala saaro aad baad u mahadsantihiin waanan niiga mahadnaqayaa xaqan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh